Boosaaso Public Secondary School waxaan halkan ka soo jeedinayaa in la yiri yani anagoo arday foonfoora oo 12 sano wax soo baranay xaqna u leenahay in shahaadada buuq la geliyo oo labada dawladood ay madaxa isla galeen waxaan kale halkan ka sheegayaa yani anagoo arday Soomaaliya nahay Soomaaliya ha noolaato waxaan sheegayaa in uu yiri wasiirka waxbarashada yani waxaan arkay arday yani shahaadada Puntland waxay ku tagtay Uganda laakiin waxa waa khiyaale arday walba oo Puntland ka taga wuxuu shahaadadiisa ku dhigsadaa Soomaaliya waxaan nahay Soomaali mana doonayno anagu Puntland Soomaaliya hanigoodo كنا كشوفه دقنون وقدروا عد كستو دولة فدراك معارضكوا أنا وعن قرب تاينا دولة يرى وعن أوبحنا امتحان أنا كوكنا عنه مستقبل كيا هو يمكن تربية يا يلا خبينا برتين كسر كذا واحد صاير أنا مش شاقة عد كستو الصومالي جديدة أنا جبتلان وحين نوتر الصومالي وحنا الصومالي وحنا جوانينا هل امتحانا وقلنا ونزل بعده الصومالي ما مش شاقنا وحنا نقبله وإنجليش هذا الصومالي ومن قبله هذا معناها عشان عيد الصومالية أنا الصومالي بهاي وأنا سكوت ترى شهادة قاضي كوا قاضي أنا قف صومالية وأنا هاي قف كوسا برتي لقد إنجليز كوا لكن أنا وأنا دوني برتينا كشجرة واحد هاي وأنا دوني لقد إني ناس عشا وأنا دوني الصومال وكبرنا وأنا دوني إني نقول صد صومالي اسكت يسن ضد الكوي ضد كوا حكم كرا بتلان مرة ما كلا قيس للصومالية مرة ما أنا الصومالي أنا الصومالي أنا خلق المجرم ما يقول وسيرك بتلان خلق المجرم يا شاعر مرة ما بصوماليا أنا لا بتلان مرة ما بتلان waxaan kan ugu mahadcelinayaa buuqa dhammaan ardayda Soomaaliyeed ee halka taagan iyo SBC oo helan danaha bulshada Soomaaliyeed maanta waxaan soo booqday wasiirka waxbarashada Soomaaliya waxa uu ka dhawaajiyay ilmaha kuma jiro waxaan soo booqday wasiirka waxbarashada Puntland waxa uu ka dhawaajiyay in dalal badan lagu tii karo shahaadada Puntland saasha wadida wasiirka waxa weeye ma i'tiraaf koob shahaadada bixinaysa mudane wasiir see wax ku wada maamul goboleed baa tahay shahaadada xaq laga qoosaya riyaadka iyo xaqiiqada waxaan rabaa meeshan bari khaasan iskool gudsiga sare boosas babisiga iskool waxa maanta ka haynaa shahaadada muranka gashay ee Soomaaliyeed ana runaantii waxaan arday Soomaaliyeed man yaa arday Puntland ama gooni goosada saas ay tahay anoo maanta waxaan ka taaganahay inaan cadeynaa Soomaali aan nahay rabnana meeshii wasiirka waxbarashada uu ka leeyahay Puntland shahaadada meel kasta caalamka lagu tagaya inay noqoto Soomaali meel kasta shahaadada lagu tago taas ay bedelka noqoto inaan Soomaali midaysan noqono ardayda Boosaaso Public Secondary School saaga waxaan yimid wasiirka waxbarashada si uu fikradiisa khaldan anaga arday ahaanteen ugu guro wasiirku wuxuu yiri aniga waxaan waxbarasho ku soo bartay waxaan jaamacad ku galay shahaadada Puntland ardayda hadda joogtay sababta loo sheegay shahaadada maxay tahay loo aqbali waayo shahaadada sababta wasiirku waxa wadiina muxuu inay anaga fikradiisa khaldan iyo qabaaliyeed waxaan dawladda Puntland waxa uu sheegay inaysan aqaladeen dawladda Soomaaliya inaysan ka horimaan dawladda Soomaaliya fikradeeda إيه سياسة عامة اسمع معنا مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأنا ومعايا مريم عبد القادر شيء دلار وأنا هلكن أبي أروح مع ذي ما أنت سوى نايم علي سوى نايم علي وسيرك برشلونة بتلعب